waxaan rabaa inaan u hambaleeyo xukuumadda isbeddelka ay ku dhaqaaqday ee ay doonayso inay wax ku beddesho waddanka. waxaan rabaa oo kaleeto inaan ka hadlo wasiirradii xilkooda waayey inaanay noqonin kuwa mucaarad ku noqda dawladda ee ahaadaan kuwa la shaqeeya dawladda. kuwa hadda loo dhiibina waxaan leeyahay hambalyo. waxaan xukuumadda ayaan hambalyaynayaa, dawladda ayaan hambalyaynayaa, waxqabadkeedaan ku hambalyaynayaa. waxaan anugu u arkaa isku shaandhayntii xukuumadda golaha wasiirrada ku timi ee saddexda wasiir in aysan ahmiyad gaara lahayn wakhtigeediina la joogin, iyada oo ay jiraan hawlo badan oo ka mudan in la qabto. waxaase nasiib darro ah in wasiir xalay idaacadda aan ka dhegaysanaynay oo jooga xuduudka Soomaaliya oo Kenya kala xaajisanay arrimihii Soomaaliya oo kala hadleeya biri iyo badba lagu sameeyo arrintiisii iyo shaqadiisii uu qabtay ee Soomaalinimada uu qabtay dhabar jab. waxaan u arkaa xukuumaddu dana si ay wakhtigeeda ay u sii dheeraado inay danaheeda ku difaacanayso oo dadkanu ay haystaan dad xildhibaanna keensan kara ay yihiin ama wacyiga waddanka fahansan sidii ay kursiga ku sii joogi lahaayeen. laakiin waxay ummadda u soo kordhinayaan oo kale ma garan karaan.